marar badan ma ku hami jirtay in ay iibsatid saacadaha smart watch-ka ah ee shirkadda Apple ay soo saarto laakiin marka aragtid qiimahooda waalida ah ee xanuunka ah ee qaaliga ah ma ka carari jirtay yacni tusaale ahaan saacadda Apple Watch Hermes oo kale qiimaheedu waa 1350 ama saacadda Apple Watch Ultra 2 oo kale qiimaheedu waa $800 yacni xoogaa waa xanuun qofku inuu saacad ka bixiyo $1350 laakiin war farxad leh ayaan maanta idin hayaa iyo saacad raqiisa oo ay sanadkan soo bandhigtay shirkadda Apple. The new SE will be available in silver, midnight, and starlight, all in. It's now made of nylon composite. Map and home keys and wallet. Sidaan la soconno 12 bishan Apple waxay soo bandhigtay produktiyadii ay u tala gashay sanadka 2023-2024 kuwaas oo ugu weynaa telefoonka aadka loo wada sugayay ee iPhone 15. sidoo kale sanadkan Apple waxay soo bandhigtay saacad smartwatch oo haddana aan la mid ahayn kuwii hore looga bartay ee qaaliga ah. su'aalahan saa hore usoo sheegnay oo kale Apple Watch Hermes waa $1350 halka Apple Watch Ultra 2 ay tahay $800 yacni waa saacado qaaliya. laakiin sanadkan Apple isbedel weyn ayuu ku sameysay dhanka smartwatches-ka waxayna soo bandhigtay saacad raqiis oo qiimaheedu uu jaban yahay. Apple Watch waxay soo bandhigtay saacadan lagu magacaabo Apple Watch SE waana saacad wax badan ka raqiisan saacadihii qaaliga ah ee Apple lagu bartay waana saacad ay awood u leeyihiin dad badan in ay iibsadaan. saacadan Apple Watch SE waxay isku nidaam ku shaqeynayaan saacadaha qaaliga ah waxayna boqolkiiba in badan isku mid yihiin boqolkiiba boqol ma dhahayno laakiin boqolkiiba in badan waxay isku mid yihiin oo wax walba oo kuwa qaaliga ay leeyihiin waa ay leedahay iyaduna wayna ka raqiisan tahay. saacadan Apple Watch SE biyaha iyo ciiduba ma galaan sidoo kale ma daxalaysanayso oo yacni maar ma yeelanayso. baterigeeda saacadan 18 saac oo xiriir ah ayuu ku haynayaa. sida saacadaha kale ee qaaliga ee Apple soo saarto ayaa saacadan waxaad kala socon kartaa xaaladaada guud ee caafimaad sida wadna garaacaaga blood pressure-kaaga sidoo kale waxay ku sheegaysaa noocyada kala duwan ee jimicsiga aad sameynaysid tusaale ahaan marka orod sameynaysid marka soconaysid iyo marka miisaan culus qaadaysidba. saacadan Apple Watch SE GPS-ka iyo internet-ka way kugu shaqeynaysaa markaad eSIM ku isticmaalaysid. inta aan u guda galin qiimaha saacadan Apple Watch SE horta maxay muhiim u yihiin saacadaha Apple Watches-ka ah gaar ahaan maxay muhiim ugu yihiin dadka taleefanada iPhone-iska wata. dhowr qodob ayaan sheegaynaa. kan koowaad oo kale waxa weeye notification-iska ayaad kala soconaysaa yacni muhiim ma ahan mar walba telefoonkaaga iPhone-ka ah in aad gacanta ku haysid ama inuu jeebka kugu jiro. telefoonkiyo meel kale yaala ayaa notification-ka saacada kala soconaysaa adigoo ka falcelin kara qofkii u jawaabi kara la hadli kara yacni arrintaas muhiim ayay u yihiin. tan labaad oo kale waa badbaadadaada oo kale tusaale ahaan adoo gaarigaaga wato oo kale haddii aad shil gashid si automatic ah oo degdeg ah ayay kooxaha gurmadka degdega ah iyo asxaabtaada iyo qaraabadaada fariin ugu diraysaa in aad sil gashay waana laga soo gaaraya oo gurmad degdeg ayaa lagu fidinayaa halkaasna waa ku badbaadaysaa hadduu Ilaahay kuu qoro. waxaad awood u leedahay inaad wax ku iibsatid adigoo isticmaalaya Apple Pay-ga sidoo kale tigidyada waad ka jaran kartaa. wax walba ayaad ku dhageysan kartaa sida podcast-yada heesaha iyo wax kasta oo la mid ah. ugu dambeyn qiimaha saacadan Apple Watch SE wuxuu ka bilaabanayaa 290 ilaa 300 iyo xoogaa. dad badan baa waxay isleeyihiin war ma 290 ilaa 300 saacad gaaraysa ayaa raqiis ah intaasoo telefoon oo Samsung baan ku iibsan karnaa yacni waxay raqiis yihiin markii loo fiiriyo produktiyada Apple ay soo saarto. waayo saacadaha qayb aan soo sheegnay 1350 bay gaarayeen marka waxyaalaha ay Apple soo saarto markii loo fiiriyo yacni saacad ah $290 aad bay raqiis u tahay. dadka qayb badan oo ka mid ahna way awoodaan inay gataan. su'aal yar oo kooban saacadan adigu ma ka bixin lahayd 290 ilaa 300 xoogaa